الله الرحمن الرحيم سومالي لاند هنولاتو رير بورما هنولادان وهو يدي سومالي لاند سوماها بورما waxaan salaamayaa dhammaan dadweynaha reer Boorama iyo reer Awdal burco 19 burco markii la isugu tagay xeer baa la samaystay Soomaaliland oo dhan baa ku heshiisay waa meeshii SNM lagu wareejiyay inay 2 sanadood sii wado hawsha waxa la doortay madaxweyne baa loo doortay Cabdiraxmaan Axmed Cali labadii sanadood ee ahayd SNM in ay gaadhsiiso ummadda ilaa ummadii oo dhan way heshiisay Soomaaliland bay noqdeen waxay kaga dhamaatay oo nagaga dhamaatay khasaare meel cidlaa bay ku dhacday labadii sanadood markay dhamaatay reer Boorame ayaa isugu yeeray Soomaaliland oo dhan markii ay waanu wareeray waxay yiraahdeen waa bal xiiq tirsado halka fariista Boorame way qaad weyneed ragii joogay baan ahaa Muuse waa joogay waa la wada joogay si qurux badan oo sharaf leh oo milga leh ayaa lagu dhameeyay waxa la sameeyay axdi qarameed loo dhan yahay reero isdilay ma jirin axdi qarameed loo dhan yahay baa la sameeyay waxa lagu heshiiyay in dastuur la sameeyo in qarannimo la sameeyo la yiraahdo Somaliland reero ma ahayn hoggaan baa loo sameeyay hoggaankaana dadka haga maantana tan loo baahan yahay waxa weeyaan inaynu dooranno hoggaan dadka haga ma aha oo ku hanuuniya meesha fiican anigu waatii anaga nalaga adkaaday waqtigii udub anigu nimanka jacayl badan uma qabo laakiin dantaydii iyo qarannimadeydii baa gashay Muuse waan garanayaa Muuse biixi waan garanayaa waayo degeed hoosti baan wada seexannay dagaal baanu soo wada galnay waxaan kaloo ku xusayaa hoggaannimadiisa waxa ku qirayaa markii balligubadle aanu isugu tagnay SNMta ee la isqabsaday ee xukun la isku qabsaday ee nin waliba soo qooqay gudoomiyihii buu ahaa golaha dhexe gudoomiyihii shirweynaha buu ahaa hadda maxaan idin waa gudoomiyuu ahaa isaga markii waliba groupkiisii laga adkaaday isaga gudoonkii loo dhiibay cadaaladiisa anigu maalintaas aan ogaaday war Muuse soo saamahay shirkii ya baya shirkii baan ka waliba shirkii gabiilay maan ahay waka waxa kaloo jirta ninkan duqay waa soo gaadiiday rag baa ila askari buu ahaa caalamka askar badan baa soo xukuntay ya oo waliba dalalka ugu waaweyna digool baa kamid ahaa Eisenhower marka taas ma aha wax la isku kashifo ma aha wax laga wada hadlana ma aha waxa maanta laga hadlayaa in halkii laga sii wado qarannimada Soomaaliland tiiba god ku dhacaysa ragga halka jiifa ee aynu garanayno ee dabada aanu isku arki jiray ee lahaa ma jirto Soomaaliland waxba kama jiraan kuwiiba waxay ku dhex xuubsiibsadeen ya axsaabtii qaranka aanu doonaynay inay dhismaan oo xagga dambe u fadhiya anigu ragga waxba ka magacaabi ma way badan yihiin halkaas waxaan ku ogahay rag ibn al-halaala oo dagaalamaya oo qarannimada aan ku aamini karo aniga qabyaalad ma ay wax xamanaysaan waliba halkan la tiri jiray aniga ya marka waxa weeye Boorame meel goday ka soo saartay qarannimada Soomaaliland waxay u qalantaa maantana inay cududeeda muujiso inaan halka u dhashayna waanu wadnaayo siday waligeed baahan jirtay laakiin annagu udub hadaanu ahayn waxaanu ku haynay madaxweynaanu ku haynay ya ma ila socotaan yaynu dhisaynaa iyo reer Boorama intaan hadda waxaan maqmaqlay waxogay baa yar jira ya
ما الله هو محاين واحدة نكاس عدالة وكينا يا رجيس يا وحشرودنا يان لقو حدين غير بونا ما هنولادان حسبي قنا هنولاد